dawladda shafka markay ku dhufatay Soomaaliya waxaan joogaa Kismaayo waxaan joogaa Baydhabo ka baxay waxaan tagay Kismaayo ka baxay waa soo haajiray gobolkaan ku soo noqday waa soo galay waa soo xarooday halkaas iyo dhagax buur iyo dhul baan soo maray Itoobiya ka soo wareegay maxaa ku soo baxday lug iyo gaadiid baawur baan ku soo baxay waxaan soconayay from Kismaayo to dhagax buur aan imid muddo 2 bilood iyo bara 2 bilood iyo bara jidad baa xirmaya meelaha loo goynaya meelaha laga laabanaya qol baa meel fadhiya gobolkan goorma ku gudameysay marka gobolkan waxaan imid Boosaaso waxa iigu dambeysay 1977 late 1977 baan imid anigoo isku dayay inaan ka dhoofo Imaaraadka iyo meelaha iyo doon u raaco sanaala noqdo muddo maxaan joogay ma bil 2 bilood baan joogay waan ka noqday xamar baan ku noqday gobolka markaas ay igu dambeysay gaalkacyana waa gurigeygii bay ahaydoo in badan baan iimaanayay inkastoo wax badan aan joogayn marka gobolka waa aqaanay waa ilaa 77 waan soo socday waa hagaag marka waxaad ku soo laabatay gobolkaad ku soo laabatay markii dawladda Soomaaliya ay burburtay la kala haajiray sidee buu ahaa gobolkaani balse war naga sii xageesa wax laga bilaabay dhaqaale ahaan amni ahaan balse war naga sii gobolka والله waxa weeye gobolkan markii lagu soo noqday horta soo noqoshadu burburkii dawladda oo kaliya ma ay ahayn ka hor baa dad soo noqday oo ka imanayay ilaa gaalkacyo ilaa wardheer ilaa xagga baa laga imanayay waxa la soo raacay jidkii laamiga ahaa oo dhismay oo dhameystirmay iyo dekadii oo dhisantay oo dhameystirmay baa la soo raacay marka 1987 88 85 86 dad aan reer bariga ahayn oo bariga dadka ku nool ahayn ayaa ku qulqulayay oo galayay waa la degay buushas baa laga dhistay guriga laga dhistay waa la degay saasa loogu noolaa anaga markii aan soo noqonay oo aan soo galay gobolka kan oo qabtu dhacday Mr. Maxamed Siyaad Barre waa baxay dawladdii waa dhacday markii la yiri waxa gobernatoore ka ahaa horta nin la yiraahdo Xuseen Maxamed Cigaal reegal kacyoodo korneyl ahaa odayaashii buu isugu yeeray waan xusuustaa casare iyo rag baan ka xusuustaa Allah yarxamo dhawaan buu dhintay wuxuu yiri maamulkii gobolkan aan hayay dawladdeedii waa dhacday xilliga la wareego waayahay baaldi odayaashu waa isu tageen annagu ma aanan imaan markaa ma aanan imaan inta dadka badi soo ma gelinin waa la isu tagay waxa la yiri waayahay waa laga la wareegaya waxa la sameeyay maamul yar oo kooban maamulka yar oo kooban waxa madax u ahaa nin la yiraahdo Macawisle oo la garanayo gobolka bariya waa gobolka bari kuwan kale waa kugu soo noqonaya Macawisle waxa la sameeyo kaleeto dad kooxa oo mataqaana la shaqeeya oo hadda nin halkan joogo magaalada Cabdiraxmaan Bankax la yiraahdo oo kamid yahay iyo Macawisle loo dhiibay institutionskii dawladda oo dhisnaa sida gobolkii degmadii isbitaalkii Neckfish korontadii waxa loo qaybiyay qabaa'il baa loo qaybiyay mid walba qabiil baa gacanta loo geliyay waxa la yiri amaanu kugu yahay ilaaliya mid walba qabiil baa loo dhiibay saa ku hayaa la yiri maamulkaas waa jiray waa shaqaynayay waxaana ka dambeeyay odayaasha oo badan aad u fara badan oo dhaqanka Boosaaso odayaashii ku koobnaa meel kale loogama imaan maamulkaas ayaa jiray horta asaj waxay ahaayeen bari iyo nugaal runtii waxay ahaayeen governors bay ahaayeen waxa la sameeyay governor iyo guddi la shaqaynaya taan mar gaalkacyo kale Allah yarxamo Coon Cali Biixi baa kamid ahaa isagoo ahbaaba lagu dilay Boosaasana waxa ma ahaa ninka la yiraahdo mar maxaa xasan barra ahaa mar Cabdi Bashiir baa ahaa yani nidaam noocaas loo sameeyay maamulahaas loo sameeyay maamulka gedisan oo runtii aad iyo aad u qurux badnaa in detail ah baa nugaal ka jiray waxa la doortay council iyo governor karo horay waa jiray oo la doortay Cabdi Muuse Caayib nin la yiraahdo waxba badan oo ma aysan jirin markaa dib baa waxa loo amaamuday 1993 ba in la sameeyo council iyo governor council baa la sameeyay la qaybiyay qaab beeleed lagu qaybiyay qaab degmo lagu qaybiyay waxa lagu qaybiyay Cabdi Gaandaan la yiraahdo kamid aha Axmed Caydiid kaan iyo Cali Yuusuf Cali Xoosh governorka waxa lagu sameeyay si cajiib ah waxa loo sameeyay ergooyin laga keenay degmooyinka gobolka Nugaal baa doortay Cabdiraxmaan Farool la doortay in maamulka nabadgelyada dhaqaalaha maxaan ku sheegaa adeega bulshada nadaafada khuraafa inta ay qaban jiray maamulada hoose ay qaban jireen inuu qabtabay ahayd waana qaban jireen sitting bay lahaayeen maray fariistaan lahaayeen meel gunooyin ma ay lahayn
waa dambe waxaa ku soo gaaray anaga waxaan ku soo gaaray hay'ad aan u shaqaynaya life and peace la yiraahdo baan ku soo gaaray oo aan tababar siinay laakiin inay maamul hoose intuu qaban jiray inuu qabto baa loogu talagalay oo ay qaban jireen marka kan Garowe in detailed buu ahaa maamul wuxuu ahaa dhisan oo detailed oo doorasho ku yimid oo rabitaan ku yimid oo ka ku yimid kuwaasi waxay ahaayeen magacaabid la magacaabay governors iyo wax noocaas institutionka kale waxay ahaayeen dabcan samafal bay ahaayeen dhowr waxaa abuurmay institution oo samafalaha abuurmay istamal gaalkacyo aan ka soo bilaabo waxaa ka abuurmay institution weyn oo caasho geelle iyo xaawe aadan waxba ka dambeeyay shuuka iyo xaawe aadan iyo waxa ka dambeeyay iyo Faadma Faarax alxamdulillah hadda UNICEF u shaqeysa iyo Somali Women Concern baa la sameeyay SWC baa la sameeyay bari waxaa laga sameeyay Garowe waxaa laga sameeyay Kaalo ururka leeyahay Kaalo oo hadda wari hoggaanka u hayo Maxamuud Sheekh Xamuud ma hada ka gaarto institution kaliya oo wali magacii iyo dadkii iyo sidii u jira weey عجيب وي institution kale oo ka jaamacad dhalay BSU dhalay wali oo gacanta ku hayo qurux badan ka yeelay kala laga sameeyay waxa kamid ahaa de ragga in xuxuulan la yiraahdo madax u ahaa marka koobaad Cabdiwali Xuseen Nuur baa ku jiray waxa ku jiray Maxamuud Sheekh Xamed baa ku jiray waxa ku jiray Aadan Sheekh Doon baa ku jiray waxa ku jiray rag xagaafe rag Holland joogo engineer laalaciyo rag noocaas oo taageerayay baa jiray wax noocaas saas u dhismay kaalo shaqo fiican buu qabtay waxa dhismay boosaas ka dhismay saddex urur baa ka dhismay in fact waxa ka dhismay urur la yiraahdo Sourso dad gudaha jooga oo Cabbaas Gacmagaab Cabdisalaan Ali Faarax Xuseen Ali Biligsay iskuulada hadda haya ay ka mid yihiin muumin la yiraahdo asagoo ku wadaahayo markay nimankaas ka tageen xataa gacanta ku hayay rag loo kala iyo rag dibadda jira badanaaba Canada jira shuuka kamid ahaa la ma taqaana hawshaas kamid ahaa waxa kamid ahaa wasiirka arrimaha dibadda oo Soomaaliya maanta ninkan la yiraahdo Awad baa kamid ahaa Abdul Qaadir Fiisika kamid ahaa oo taqaan Soomaa Abdul Qaadir Fiisika kamid ahaa soorsaasay ku dhisantay waa shaqayn samafal buu ahaa yani marka waxa bilaabanayay hay'adaha caalamku inay iyagoon wali biisir ahayn wixii aan sameynay Nairobi baan u diri jirnay iyadoo tape ku qoran computer ma jirin tape bag oo highlighting yale baa Nairobi loo diri jiray maadaama hawshu iska bilow ahaydna wixii macquula waa soo sii day jireen waxa abuurmay urur kale oo la yiraahdo Raxmo oo aniga iyo nin la yiraahdo maxamed Ciise Waraari haya iyo nin la yiraahdo Cornel Abdi Salaad saf balaaran in engineer ahaayo dhintay Allah yarxamo iyo rag noocaas Raxmo la yiraahdo asaguna ka saddexaadna wuxuu ahaa urur la yiraahdo Al-Islaax oo kan markaa ugu samafalka badnaaya runtii sababtoo wuxuu ku xirnaa Qatar Kuwait Oman waxba iimaan jiray maraakiib sadaqo timir doonyo adduunyo baa iimaan jiray marka urur laakiin samafala oo fiican oo si fiican u shaqaynayo oo horumarsan aad u horumarsan markii laga soo noqday meesha la yiraahdo Qaahira oo la yimid 1997 Abdullahi Sifi ay soo dhaceen ba Abdullahi Sifi maxaad abshiriyo iyadoo la isgarabsanayo baa national la sameeyay North Eastern Highway Authority ahayd la bedelay magac hadda waa la bedelan u maleynaya markii gobolada kale ay yimaadeen Puntland Highway Authority baa loo bixiyay waxa la North Eastern Highway Authority baa la sameeyay markii la arkay jidadkii niman engineeraha yimid dad aqoon yahanaa baa yimid jidadkii wixii yasaan ma ahaan karaan maxaa la sameeyaa waa in hay'adda la abuuraa leevina loo sameeyaa leevi batroolka taayirada bateriga oliyada khuraafaadka wixii ku taxalluqa gaadiid iyo gaadiidkaba wuxuu ku taxalluqa gaadiid ha looga sameeyo leevi ay jidka ku dhisto waxa loogu talagalay waxa la yiraahdo routine maintenance meeshii jiro jabtaba dhag meeshii dhag